isku dhiban maahan ninka in caruurtiisa hooyadood uu ku dhibaateeyo oo biilka uu ka jarto oo maaragtay uu dhibaato u horseedo ma aha la iskuma dhibo waa xaaraan dambi weyn baad galaysa haweeneyduna ma ahan caruurtaas ninka ay u dhashay oo ay hayso inay ninkeeda ku dhibto xaq dhaqaale ay ugu dhibto ay dhibaatayso yacni waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo cadgoosi ah inay samayso cadgoos wax la yiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka reebay waxaa loo baahan yahay marka labada dhinacba caruurta qalbigooda in la ilaaliyo haddii la kala tagay khaasatan raggu waa inay caruurta qalbigooda ilaaliyaan waxbarashadooda dadaalkooda maaragtay aabinimadii in la tusiyo oo canugu uusan noqonin canug koray yacni bilaa aabbo waa inuu ka warhayo haweeneydana caruurtii iyo aabbahood aysan kala goynin badanaa dumar markay kala tageen ninkoodii caruurtii ka jaray lama baana caas caruurta caasiyaal bay noqonayaan waa shay xaaraan ah weeye shay xaaraan ah maxaan saa u leeyahay wallahi waxaan arkay haweeney ninkeedii ay kala tageen caruurtii bay waxay la aaday qurbaha ya ninkiina afrikuu joogaa waxay u diiday caruurtii inay la hadlaan aabbahood waa waxaan arkay weeyaan dadaan aqaano weyn caruurtii inay aabbahood la hadlaan ayay ka goysay xaraam way waxaas ilaahay subxaanahu wa tacaala kama raalli ah caruurtii maxaad ku beertay caasinimo aabbihii walwal iyo murugo adigii dembi baad ziyaadsanaysaa dembi baad shaqaysanaysaa isma og ha samaynaysa ha samaynin ha kala dhexgelin caruurta iyo aabbahood ha kala dhexgelin ya si kastoos kuu soo xumeeyey yacni kama aargoosan kartid caruurtaada aabbahood kama cadgoos bulshooy bishaaro war heedhe waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Isliis Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحابتي فريتانكي بغير السبب بسبب الآن أيوبت دمركي مركي لو ويدينا آد وحي ساران رقه ragguna waxay eedda saaraan dumarka ama meesha yacni nacayb labada qof ka dhexaysa ha soo gasho calaf baa soo dhammaaday baa la yidhahdaa waxaa weeye waa hadal ma ogtahay hadal lagu halqabsado weeye waa calafkii baa soo dhammaaday waa soo afjarmay maxaad ku kala tagteen calafkii baa soo dhammaaday adiga iyo hebelaaye maxaad ku kala tagteen calafkii baa soo dhammaaday waa iska halqabsi ma ogta halqabsi buu iska noqday furitaan kaste waa inuu leeyahay sabab la taaban karo waa inuu leeyahay haddii uusan lahayn sabab la taaban karo dadkaasi waxaa kala dhexgalay xasid
sixir, il, shayaadiin baa dhex gashay. Tagina maanta hadday xaaladdu aad isku dhacdeen, waayo soo xasuusta. waayo waa in la soo xasuusto, ma ahan inay kaaga dheganaato maxaad saan ii tiri iyo muxuu saan ii yiri. ya walaa tansaw lfadla baynakum, fadligii dhexdiina ahaa, khayrkii, wanaaggii aad ku wada noolaan jirteen dib u xasuusta. haddaad kala tegaysaan iyo haddaad wada joogaysaan iyo haddaad intaad isfurtaan isku noqonaysaanba, wanaag waxaa idinka dhexeeya. isku dhiba maahan ninka in caruurtiisa hooyadood uu ku dhibaateeyo oo biilkii uu ka jarto oo maaragtay uu dhibaato u horseedo ma ah, la iskuma dhibo, waa xaaraan, dembi weyn baadna gelaysa. haweenayduna ma ahan caruurtaas ninka ay u dhashay oo ay hayso inay ninkeeda ku dhibto, xag dhaqaale ay ugu dhibto, ay dhibaatayso. yacni waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo cadgoosi ah inay samayso. cadgoos wax la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala waa ka reebay. waxaa loo baahan yahay marka labada dhinacba caruurta qalbigooda in la ilaaliyo haddii la kala tagay. khaasatan raggu waa inay caruurta qalbigooda ilaaliyaan, waxbarashadooda, dadaalkooda, maaragtay aabinimadii in la tusiyo oo canugu uusan noqonin canug koray yacni bilaa aabbo. waa inuu ka warhayo. haweenaydana caruurtii iyo aabbahood aysan kala goynin. badanaa dumar markay kala tageen ninkoodii caruurtii ka jaray, lama baana caas. caruurta caasiyaal bay noqonayaan. waa shay xaaraan ah weeye, shay xaaraan ah. maxaan saa u leeyahay? wallahi waxaan arkay haweeney ninkeedii ay kala tageen, caruurtiibay waxay la aaday qurbaha, ya ninkiina afrikuu joogaa. waxay u diiday caruurtii inay la hadlaan aabbahood. waa waxaan arkay weeyaan, dadaan aqaano wey. caruurtii inay aabbahood la hadlaan ayay ka goysa. xaaraam wey waxaas, ilaahay subxaanahu watacaala kama raalli aho. caruurtii maxaad ku beertay? caasinimo, aabbihii walwal iyo murugo, adigii dembi baad ziyaadsanaysaa, dembi baad shaqaysanaysaa. isma og. ha sameynaysa, ha sameynin. ha kala dhexgelin caruurta iyo aabbahood, ha kala dhexgelin. ya si kastoos kuusoo xumeeyey, yacni kama aargoosan kartid caruurtaada aabbahood, kama cadgo